aan ku bilaabay magaca layrkan waxaa loo yaqaanaa nalka IM252 ama layrka IM252 ha dabcan waa nal smart ah oo muddo 2 sano aan tijaabo ku waday fadlan ha ka bixin muuqaalkan si daawo si aad wax badan uga ogaato ama gacantaada uu soo galo maamulka layrka qolkaaga sidaad u jeedo muuqaal ahaan nalka IM252 waxba kagama duwana nalka aad haddeer isticmaasho laakiin wax ugu weyn kugu soo kordhinaya ayaa ah inaad telefoonkaaga ka maamulan karto layrkaaga oo sida aad doonto aad ka yeelan karto ha ahaado iPhone ama Android si isku mid ah dabcan xagga dabka markii la fiiriyo waa 9 watt oo kaliya dab badan kaama cunayo laakiin waxa uu u dhigmaa nalka aad haddeer isticmaasho oo qadiimiga ah oo 60 watt ah taasoo macnaheedu ay tahay iftiin wanaagsan ayuu ku siinayaa dab aad u yar ayuuna kaa cunayaa waxa kale oo muhiim ah inaan ku sheego haddii aad iibsato nalka IM252 waxaad heli doontaa 6 bilood oo damaanad ah oo haddii 6daas bilood gudahood uu kaa gubto ama uu ku shaqayn waayo mid cusub oo free ah ayaa lagu siinayaa marnaha ka walwalintayadiisa waxa uu u naqshadaysan yahay in uu sanado iyo sanado shaqeeyo si aad u isticmaasho kaliya iska fur nalka aad haddeer ku isticmaasho qolkaaga kadibna ku xiro nalka IM252 ha ilaawin inaad daarto marka aad daarto waxaad soo gashaa Play Store ama App Store waxaadna soo degsataa app magaciisu yahay Magic Home Pro marka aad soo degsato waxaad tagtaa qaybta Wi-Fi-ga ee aad wireless-yada ku xirato waxaa soo gelaya wireless cusub oo magaciisa ka bilaabanayo LED net waa nalkee ku xiraba markaad ku xirato waxaad soo gashaa application-kii aad soo degsatay ee Magic Home Pro kadibna Wi-Fi-ga marka aad ku xirato waxaad arkaysaa nalkii in uu ku soo galay application-ka sida aad doonto ayaad markaa nalkaaga u maamulan kartaa waxyaabaha aad ka dhex samayn karto application-kan si aad nalkaaga u maamulato ayaan mid kuugu sheegayaa laakiin waan soo koobayaa maadaama awoodaha nalkan uu badan yahay qaybaha ugu muhiimsan ayaan ka soo qaadanayaa kuwa kalena muuqaalo dambe ayaan ka samayn doonaa alla idinkii nalkaaga waxaad ka damin kartaa meesha aad joogto waadna daari kartaa dabcan sidaa ayay u fududahay waxaad kaliya taabanaysaa batankan ama intaad nalka taabato ayaad qaybta sare midig ku arkaysaa meesha laga damiyo ama laga daaro way isku dhamaatay waxyaabaha xiisaha leh aad nalkan ku samayn karto waxaa ka mid ah inaad midabka bedelin karto dabcan aad ka dhigan karto midabka aad doonto oo dooqaaga ah tusaale ahaan cagaar ayaad ka dhigan kartaa bal fiiri guduud ayaad ka dhigan kartaa buluug ayaad ka dhigan kartaa jaalle laakiin aniga midabka aan jeclahay waa midabkan warm white uu ku qoran yahay waxa uu ku siinayaa caddaan deerimaad fiican leh indhahana u roon bal fiiri waa midab aad u wanaagsan runtii iftiinka sidaa doonta ayaad ka yeelan kartaa waad yarayn kartaa waad dheerayn kartaa oo waad badsan kartaa halkan ay ku qoran tahay brightness-ka ayaad ka soo jiidaysaa 100% inta aad doonto ayaad keenaysaa tusaale ahaan 17% bal fiiri haddeer waan dheeraynayaa 100% ayaan ku celinayaa bal fiiri 5% ayaan ka dhigayaa oo aad ayaan u yareynayaa bal fiiri xitaa 5%ka iftiin wanaagsan oo macquul ayuu ku siinayaa haddii aadan hal midab rabin xaraga ayaad u yeeli kartaa layrkaaga oo midabo kala duwan ayaad saaran kartaa waxaad kaliya imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay functions kadibna midabada isbedelaya ayaad kala dooranaysaa kuwan oo idil waa midaba isbedelaya tusaale ahaan si aan kuu tusiyo midka ugu hooseeya ee nambarka 20aad 7 midab ayuu isku bedelayaa bal fiiri 7daas midab ayuu sida isku bedelayaa iskiisa haddii aad doontana mid si tartiiba u baxaya si tartiiba u imaanaya ayaad ka dhigan kartaa waxa raga kale oo nalkaaga ku soo kordhin karto waxaad sidoo kale samayn kartaa inaad codkaaga ku xirto layrkaaga kaliya waxaad imaanaysaa qaybta ay ku qoran tahay mic kadibna waad hadlaysaa bal fiir haddeer marka aan hadlayo waa uu shidmayaa oo layrka dhaqdhaqaaq ayuu samaynayaa midabo kala duwan ayuuna dabcan la dheelayaa markaan aamuso waa uu aamusayaa bal fiiri waan hadlay mar kale ayaan hadlay waa kaa marka laga soo tago codkaaga waxaad kaloo samayn kartaa in cod telefoonkaaga ku jira aad soo geliso kadibna uu codkaas la dheelo
oo codkaas uu la jaan qaado codkaas marka uu frequency badan bixiyo layrka uu iftiin fiican ku siiyo codkaas marka uu xoogaa degana iftiinka uu yareeyo oo sida uu la cayaaro midaba kala duwanna uu siiyo dabcan sidaad hadda arkaysay oo kale runtii adeegsiga nalka AM252 aad ayuu u fudud yahay xitaa haddii aadan muuqaalkan daawanin kartoonka nalka dushiisa waxaad ka heli doontaa qoraal faahfaahsan oo ku aadan habka loo adeegsado nalkan anigoo rajaynaya inaad iibsan doonto nalkan casriga ah waxaad halkiisa xab ku heli kartaa $12